shirkani oo ahaa mid lagaga hadlayay horumarinta tiknoolajiyadda qaaradda Afrika iyo sidii ay dhalinyarada Soomaaliyeed iyo kuwa Afrikaba uga faa'iideysan lahaayeen fursadaha jira ee waqti xaadirkan casriga gaar ahaan tiknoolajiyadda ayaa ka qabsamay moolka Two Rivers ee magaalada Nairobi. kulankan waxaa qayb ka ahaa aqoon-yahaniin Soomaaliyeed oo ku xeel dheer arrimaha bulshada iyo waliba sidoo kale kuwa tiknoolajiyadda kuwaas oo inta badan gorfeynayay arrimaha tiknoolajiyadda iyo waliba sidoo kale saameynta dhaqaale ee coronavirus oo ku yeeshay tiknoolajiyadda casriga ah. xildhibaanka degmada Kamaguji Yuusuf Xasan oo marti ku ahaa kulanka ayaa lagu weydiiyay su'aalo la xiriira saameynta dhaqaale ee faafaha daran ee corona oo ku yeeshay ganacsiyada yaryar ee xirfadlayaasha ah. waxaanu tilmaamay waa Yuusuf Xasan waxaan maanta isugu nimid halkan Two Rivers Mall shir weyn oo lagu yeeray niman dad gabdha iyo wiilal khubaro ah oo ka waramaya teknoolajiyada qaybta ay ka ciyaarayso horumarka qaaradda Afrika khaasatan geeska Afrika iyo Kenya. marka waxaan ka hadlaynay sidii teknoolajiga uu u fududeyn karo horumarka qaaradda Afrika iyo qaybta dadka dhalinyarada ee Soomaaliyeed ay ka qaadan karaan. marka anagoo dhoora maanta waxaan ka hadalnay anigu khaasatan qaybta dalka Kenya sida dalka Kenya cudurkan COVID-ka uu saameeyay shaqo la'aanta ganacsiga wax ku dhacay iyo sida teknoolajigu wax uga qaban karo una horumarin karo shaqooyin cusubna uu abuuri karo dhalinyarada wadanka iyo qaybta ay dawladda ka qaadan karto xagga sharciyada iyo xagga maalgelinta ganacsatada yaryar ee wax abuuraya wax soo saaraya fikradaha cusub soo saaray technology-ga start-upska iyo ganacsiga sidii loo fududeyn lahaa. marka anigu waxaan ka hadlay in sharciyo badan la mariyay sharciyadaasna ay u fududeynayaan dadka ganacsatada hawshooda maalgelinta wadankana la fududeeyay isla markaana dawladdu ay maalgelinayso ganacsatada yaryar ee soo kacaya waliba kuwa dhaawaca weyn uu gaaray waqtigii COVID-ka. jira mashruuc dawladdu ay maalgelisay oo bangiga adduunka uu ka qayb galay oo lagu taageerayo ganacsatada yaryar dhalinyarada ragga iyo dumarkaba. waxaanan ka codsaday dadka dhalinyarada inay eegaan sidii ay uga faa'iideysan lahaayeen mashaariicdaas. waxaana laga helaa warkaasi wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha iyo wasaaradda ICT-ga website-yadooda. mas-uuliyiinta shirkadda IBI oo iyaguna warbaahinta la hadlay ayaa sharaxay doorkooda ay ku leeyihiin shirkani waxa aanay hoosta ka xaqiiqeen faa'iidooyinka kulamada noocan oo kale ah. waxaanay tilmaameen tabadan weyn oo looga hadlayay African Innovation Partnership Summit ayuu ahay. ABI waxay qayb ka ahayd sponsorka kambaniyada sponsor gareeyay barnaamijkan inuu dhaco. sharaf ayaan noo ahayd inaan qayb ka qaadano arrimaha horumarinta bulshada. inta badan ganacsigu waxay fiiriyaan dadka ganacsiga inay ganacsigooda kaliya laakiin waxa muhiimadu tahay in bulshada dib wax loogu soo celiyo in dhiirigelinta iyo wacyigelinta bulshada aan qayb ka qaadano. maanta maadaama xafladan ka dhacaysa Two River Nairobi ayaan si weyn uga soo qayb galnay. waxaa joogay madax sare oo kamid yahay maxaa la yiraahdaa xildhibaanka Nairobi ee Soomaaliyeed Yuusuf Xasan iyo governor iyo Cielo maxaa la yiraahdaa madax ka socotay deputy governor oo Cielo ayaa joogay. marka waxaa ka soo qayb galay runtii gabdho iyo dhalinyar iyo dhammaan bulshada qaybadeeda kala duwan. dhabaxantan waxaa soo abaabulay SBNA groupka la yiraahdo oo ah Somali Professional Networking East Africa. marka East Africa dhabaxantii way wanaagsan tahay inay dadka ganacsiga ama professional markay noqoto waxaa ka koobmaya waxaa ku jiraya engineeringka dhaqaatiirta saxaafadda waxaan raadada qayb walba dad walba oo waxbarashada oo qof walba oo ka gaaray mansab ama ganacsatada oo ha noqoto. marka sharaf ayay noo tahay in anagu qayb ka noqono xafladan weyn ka badan. Apple Premier hadda isbuucii hore xabru waxa ka jiray maxaan ku raadada Muqdisho Tech Summit qayb aan ka ahayn sidoo kalena waxaan qayb ka qaadanaynay
dhammaan barnaamijyada madalxiiska ama danka arrimaha bulshada wax badan ayaan ku celinayna oo feedbacka marka mar walba ABI waxay u taagan tahay horumarinta deegaanka iyo dalka Soomaaliyeed iyo dibadhiskiisa inay qayb ka noqoto sidoo si lamidana inaan qayb weyn ka qaadano dhiirigelinta iyo arrimaha bulshada ayaan si weyn ugu soo janjarnaa waxaan qaban doonaa ama qayb ka noqon doonaa barnaamijyo badan oo hadda soo socda marka waxaan sharafnaa inaan joogno xafladdan quruxda badan waxaan ku faraxsanahay Soomaalida professional isku imaatay anagu waxaan ahay Somali Professionals Network Eastern Africa and we are Somali meel kasta adduunka joogto event badan ku sameeyaan and tiimo badan aan leenahay partners aan leenahay waxaan aad u dhiirigelinaynaa Soomaalidana inay ay soo dhawaadaan nala qayb galaan waxyaalahan oo wanaagsan ayaan sameynayno maanta waxa isku imaanay waxay ahayd Soomaalida oo wax barteen oo khibrad weyn leh inay knowledge-kooda yani wax barashadoodii waxay soo barteen la wadaagaan oo kamid yahay Yusuf Kamkunji MP marka aad ugu faraxsanahay ma sha Allah inuu maanta dadkan oo aad ka u badan nagala qayb galeen marka midda aad ugu maanta nala shaqeeyay dadka kamid ah partners keena weeyaan dadkan oo nala wadaagay event-ka nala sameeyay Muslim Women in Technology-ga team kan kaleeto abi ay kan wax badan nala qabteen ma sha Allah waxaan ahay Soomaali gabdho isku imaaday oo inay sameeyaan gabdhaha sidii macmiil shaqo u heli karaan through technology ay technology iyo adduunka waxa ka wanaagsan ka faa'iideysan karaan soo marka insha Allah inaan taas ku dhiirigelino ayaan umaanay marka alxamdulillah aad u faraxsanahay maanta inta la isugu yimid wuxuu ahaa shir oo dhalinyaro Soomaaliyeed qabanqaabiyeen oo looga hadlayo arrimaha horumarka dhalinyarta iyo ganacsiga la sii ballaariyo waddankan gudihiisa iyo wadamada maaragtay dariskana la muhiimaddan inay tahay wada xiriirka iyo wada shaqaynta iyo in la maaragtay la sii adkeeyo la sii xoojiyo dhinaca ka faa'iideysashada wadamada dariska dhinaca ganacsiga marka dadka maanta inta isugu yimid waa dhalinyaro u badnaayeen